muranku ma dhammaado waxaanan u arkaa kuwanoo la mari waayay inay keentay reerihii way is haystaan la kala fujin kari waa siyaasiyiintii way is haystaan la kala fujin kari waa wadaadadii way is haystaan la kala fujin kari waa jaaliyaadkii dabadda ku noolaa way is haystaan la kala fujin kari waa masaajidii dabadda joogtay intii ka talinaysa way is haysataan la kala fujin kari waa maxaa wax kastoo gacanteenna soo gala intuu muran geliyey haddana aynu u kala bixi kari laanahay maxaa xalkeenna ka dhigay inaynu ama isdillo gacanta isula tagno ama kala googo'noo kala tagno xalkeennu waa labadaa miduun ninka soomaaliga meel kasta uu joogo bal jaaliyaadkan yurub jooga kuwa gudaha jooga waxaaba laga yaabaa inaad tidhaahdo way gaajoonayaan ama dhibaaba haysata bal kuwan yurub jooga ee waxay cunaan haysta ee xoogsanaya ee haddana jaaliyad yar ku heshiin la masaajid yar ku heshiin la masaajid yar baad arkaysaayo 5 masaajid noqday jaaliyad yaroo 10 jaaliyadood noqotay halkee wax ka sii طريقة إنه حللنا وحيا أما إنه قعدت يصلى تجنه أما إنه كلا جورون رهنا ورد مساجد كودا ما إنه متكلا هالك طبعا قفنا بينه صوروري مت بينه سبعي سنين عيه ولكن كودا إسكاي سته جالية دودا وقتها جالية كلا إنه سبعي سنين عيه صوروري لبضهم وضم حل كأنه نكديكي ودات كأني سياسي كأني سلطان كأني قضي كأني قبيل كأني دولة نمداني وحين يرمو حكو سليسيه إما إن نسدلو اسكو ضينين إن حوق اسكو مقونينه وانا لأنا إنه نحوق هلوكو مقوريا قصباكو وحينيا أما إنه حالك كدقنا كلا جورو أدنا إنت هذا هيسار ونا إنت إذا هيسانيا كاسنا حالك معها طريقة مركا حالك هو محي شرع بني عندي فاهن وباهن إن تتكوي كهليس محاضرة نصدح كلا بدن لكن وين سوكو بيا سي معنى جودة قوة فهم كرو reconciliation كا أما الضدين له هشيسية صدح وضمدهم بالله مرة صدح لو وضدتي لما ربنا يلقوا هشين كرا ودد كوات والعفو أما قال ده وحي forgiveness هذا reconciliation method كوجه الرأي وforgiveness العفو إن عدي دول قاضته تنازشه قف بحقي سكة تنازلي سدت كوه شيء وطريقه النبي محمد نبري عليه الصلاة والسلام نبي الله محمد وحل يسكت ديين للدلو دل خيامة دل بريرة دل صنعة دل قادمة انت بوال اسكدي انت بنو عفي وفرصة قضيضة بن آدم كوحا وقبضاني كلا قاري كروا دل اسكدي اما فلنتي نبي محمد عليه الصلاة والسلام قريش وحي سقطك انت يتبننوا صاران سيفتا لقب وبردي جي سعيد لو راع لقروايا هاد انتو وكبح صوت بحثي كما يهدينا وحيد هذا النولل جيريا نولل عدي كسوق بطه مدحيسة كوكا انت مدون وبغل هلا قال عصعصة ساسال غضب قالي قد بو قالي مالمو كتشري بورلي بكرات قطة وكبحي وسور يقول ساحل حابتو مري وضانتي اللي مري شريهين أخيرا بمدينتي يدو سيدا الله قالي مدينة مركو تجيل لقوم الدينينه لحسن نضاد بهدنا الدولمات لقواها وانت أصدق على دعين دولمات بدر بعد عضي أو أحد بعد عضي أو خندق أحزاب بعد عضي انت أصدق نضاد بهدنا الدولمات لقواها وحلو الدي دين وعم رئيسته سلح حديبية كدامي لحية طبعا صندوق مركي علادين أيان لبس صندوق نيهشيس كل شيء سداد يطبعا صندوق كذب أيو يسقو سداد كونوا عسكري وتصاق على مجال مكة سداد كونوا عسكري سقو وطا أيو صاق على مكة مركو فرتاق بصدينا سؤال بويدية وحولي محاول ملاينا سارنا ندخل صمينية والله سبين بيسدا وحليلي أخ كريم وابن أخ كريم
walaal fiican oo in adeer fiican oo nin wanaagsan oo cayn kara nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam saynu siirada ku naqaano kastoo sanadkeedu xoogganayn wuxuu ku yidhi idhabuu fa antum mutlaqa iska taga xor baa tihiine cid wax idiin sheeganaysaa ma jirto waa nimankii eriyey ee dilay ee maagay ee saxaabadiisa qaar siday u garaacayeen nafta ka qabtay ee qaar ku dhinteen ee intaasoo dagaal ku soo qaaday ee 18 sannadood layshayey ayuu maantuu ka gacan roonaaday ayuu wuxuu ku yidhi iska taga riwaayad sanadkeeda xasan lagu tilmaamaana aayaadkii fii suurati yuusuf ku jiray buu ku akhriyay laa tatriba calaykum alyowm nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam makay ka saareen wuu ka baxay markuu waxba ka waayey daa'if buu tegey dhagax bay kaga soo saareen wuu soo noqdo wuxuu nebigu tilmaamaya xadiidka bukhaari inuu socday isagoo itijaahu u socdaba aan garanayn lam afiq buu nebigu leeyahy maan baraarugin ama maan kala garan wax ilaa iyo anigoo maraya meesha la ydhaha batnu nakhla qarni almanaasil meesha la yidhaahdo isagoo maraya ayuu nebigu ogaaday siduu hammiga iyo murugada haysay ilaahay baa malag u soo diray malagga buuraha loo soo diray maki magaalo yar bay ahaydoo 2 buurood dhexdood ku taalla 2 buurood oo qura dhexdood inta ku taalla makaa la odhan jiray waxaa la yidhi malaggan adaa lagu soo diray malaggani wuxuu leeyahay maanta amarkaagaan ku shaqaynaya haddaad tidhaahdo 2 buurood gooyo reer maka dusha ka saar maka maanta u dambaynaysa 2 buurood baan saaraya isagoo ay maka ka saareen oo daa'if ka soo saareen oo nafta isugu keeneen ayaa waxa la siiyey nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam awoodda ah hadduu yidhaahdo 2 buurood dusha ha lagaga dhufto inuu malagu dusha kaga dhufto wuxuu yidhi waxaan ka rajaynayaa dhabarradooda إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده كوا إلهي عابدين إلهي دبر كودا كصوصار رجوا كوا كقبو عفي مورنين وكوي سارة وحسمية تشك سارة نبي محمد عليه الصلاة والسلام وهل اسكد يي انت سن لقد له خيبر مركو قبصدي ayaa yuhuudi neef adhiyaa la soo shiilay dabeetana waa la soo sumeeyey nabigaa loo keenay hadiyad baa la yidhi nebigu hilibkii markuu isyidhi rodh ayaa rabbi u warramay inuu hilibkani sumaysan yahay uu iska dhigay war bal yuhuud wixii meesha jooga u yeedhay buu yidhi waa loo yeedhay riwaaya xadiid kalea jiro isna sheegaya gabadh inay ahaydoo u yeedhay mid kastabaa noqotee u yeedha waa la isugu yeedhay wuxuu ku yidhi su'aal baan idin weydiinaya run ma ii sheegaysaan waxaan idin weydiiyo haabay yidhaahdeen wuxuu yidhi aabbihiin waa kuma reer maa tihiin waxay yidhahdeen bafulaan baanu nahay reer hebel baanu nahay waa beentiin buu nebigu ku yidhi reer hebel baa tihiin waa runtaa bay yidhaahdeen been bay u sheegeen dabeetana markuu saxii u sheegay waxay yidhahdeen waa runtaa wuxuu yidhi waxbaan idin weydiinaya run ma ii sheegaysaan haabay yidhaahdeen naarta ayaa gelaya buu yidhi waxay dhahaan 40 maalmood baan anagu gelaynaa kadibna waana laga soo saaraya in yar baan anagu naarta gelaynaa waana laga soo bixinayaa idinkaa nooga dambaynaya haddaa muslimka tihiin nebigu wuxuu yidhi beentiin weeyaan ilaahay baan ku dhaartay inaanan idinka dambaynaynin war waxbaan idin weydiinaya run ma ii sheegaysaan haa baa la yidhi wuxuu ku yidhi neefkan ma soo sumayseen yuhuudi waa niman caqli badan markiiba dariiqay ka baxaan bay samaysteen waxay dhahdeen haa waa sumayna maxaad u soo sumayseen buu weydiiyey waxay ku yidhaahdeen waxaannu islahayn hadduu beenaale yahayna dee haydin dhaafo oo aanu nebi ahayn hadduu nebi yahayna dee kollayba waa loo waxyoonayaaye nebi sun kuma dhintaannu islahayn bay dhahay waxaannu islahayn haddaanu nebi ahaynna dee haydin dhaafo haddii uu nebi yahayna kollayba dee waa loo waxyoon doonaaye sidaa tan nebigu iska sii daayo waa kuma madaxweynaha maanta joogay inta la sumeeyo odhanaya war iska taga ma jiro boqor madaxweyne nin maanta dunida ka taliya oo meelun xukuma
oo intuu wax sumeeyo inta la sumeeyo iska sii daynaya ma jiro nabi maxamed yahuudi kaamarkii ugu taagwayda way sixirta ilaahay baa quraan u soo dejiyey sixirka uu iskaga tufo uu ka bogsanayo qul a'uudu birabbil falaq iyo birabbin naas baa u soo degay maceelkay waxa ku rideenna ka soo saara baa la yidhi waa laga soo saaro waa la faafi waa la daadiyey ma odhanin soo qabta kii sixiray waa la garanayaa soo qabta iyo dila iyo ciqaab waxba toona ma odhan yani waxaan uga jeedaa in laysa cafiyaa waa qaab loo heshiiyo bini aadamka in qof tanaasulo isagoo laga gardaran yahay oo dhibi ku maqan tahay inuu tanaasulo waa qaab loo heshiiyo uu cafis la yimaado war waxa ugu adag ee bini aadamku dhacaa waa maxay waa dil soo maaha ilaahay quraanka wuxuu leeyahay faman cufiya lahu min akhiihi shay'un faattibaa'un bilma'ruuf wa adaa'un ilayhi biihsaan faman cufiya lahu min akhiihi shay ninkii loo dhaafo ay min dammi akhiihi almaqtuul walaalkiisii uu dilay dhiiggiisii wax ka mid ah ninkii loo dhaafo weli walaal baa laga dhigayaa kii la dilay iyo kii wax dilay ilaahay wuxuu leeyahay ninka loo dhaafo walaalkiisii uu dilay dhiiggiisii wax loo dhaafo qofka qof dila dadkii dhiiggiisa lahaa saddex doorasho mid bay leeyihiin inay qisaas qaataan in loo dilo iyo inay cafiyaan oo mag ka qaataan diya compensation qaataan iyo inay iskaba sii daayaan magna qaadanin qisaasinna war iska soco yidhaahdaan saddexdaba xaq bay u leeyihin ilaahay markan wuxuu leeyahay ninkii walaalkii dhiiggiisii wax loo dhaafay faattibaa'un bilmacruufi wa adaa'un ilayhi ihsaan kuwa wax dhaafay waxa korkooda saaran ittibaa'un bilmacruuf diyada inay si wanaagsan u weydiistaan markaa ka wax lagu leeyayna waxa korkiisa saaran maxay adaa'un ilayhi biihsaan idan dhiig baa la iska cafiyi karaa quraanku wuxuu inoo sheegay qisadii nebi yuusuf maxaa lagu sameeyey walaaladii baa god ku riday waa la iibsaday waa la addoonsaday jeel buu galay inta la hafro been laga sheegay wuu ka soo baxay haddana been bay ka sheegeen markii uu walaalkii rabay inuu la soo hadho waa kuwii ku yidhi isaga oo boqor ah nimankana yihiin nimankii waxaa u geystay ayay waxay leeyihiin in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qablo hadduu kani wax haday mid ay walaalahaayeenoo hore ka weyn baa jiro tuugaha waa yuusufka hor taagan ayay leeyihiin ee ay godka ku rideen waxaa u geysteen oo maantana madaxa ayay haddana waxay ku sheegayaan inuu tuug yahay waxaasoo dhan ilaahay wuxuu leeyahay xataa wuu ka xishooday inuu eray la mida ku yidhaahdo inuu ciqaabadaayo inuu eray yidhaahdo faasaraha yuusufu fii nafsihi walam yubdiha lahum baa ilahay yidhi naftiisu ku qarsado uma sheegin آخركينا لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم بكيري أنا نكركينا مسارة إلهي دمجينا هداف قصة الإفك بين قرارينها ويانا ما حيكو صابسا عائشة بين لغا الشيغي إني زنيستي والعياذ بالله إلهي با قرآن عركة كسود دجيي الشيغي يين وركاسي بين يهي وحمانا وبابكا كسابسنا إنها عايشة كل عين إلهي باو مرخاتي فري لكن مدبلا بان قرآن كسود دقين عاشار كذا لغا ورمين مدبلا وركني مقالة الحديث سعودتي ومنافقين تودين مسلمين تقول كم مدبار رن مودي وركني أنا كقيب قالي صدح قف قبل حمنا الله يراهضه حمنا بنت جحش وأي زينب بنت جحش حاسك النبي والاليين iyo gabayaagii muslimiinta xasan ibn thabit loo oran jiray iyo mistah ibn athas saxaabi la yiraahdo ayaa warka ka qayb qaatay ninkan mistah la yiraahdo hooyadii abi bakar waa habar wadaag abi bakar baana biiliyo waxsiya
أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه هدو عروضه نين عرق كل البوها أبي بكر هدو عروضه نين عرق كل البوها أبي بكر هو عروضه وحكى عروضه نين كان نبي الدوري ويا الركيسي حاسكي النبي محمد وحكى الشيقي أنت يراي قرابة دين دوري ويا قرابة نمضي إلى لين ويا وحكى الشيقي وحسينتي سدوري وايه أبي بكر سقى قوضية سقيه هو يديبه انت هاسو يدنكو كليه وحبا ويلالين وايو كعروض مو اورن وان كديليا ما شقان كا قبنيا ما وحا ما اورن wuxuu ku dhaartoon inaanu wax damba ku siinin ina kala kaxee ilaahi baa quraan soo dajiyay Abu Bakar la hadlayo wala yatali ulul fadli minkum was-sa'a an yu'tu ulul qurb yay ka dhaaran baa ilaahay yiri kuwa ilaahay nolosha u ballaadhiyay wax siiyay masaakiinta iyo muhaajiriinta iyo qaraabada inay wax siiyaan yay ka dhaaranin walow iyagu ha ku xumeeyaan bee ilaahay muxuu yiri waliyafu وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم إذن بي مساء دنبابتان إمسا قرب إنو إنتين دنبابنا نرانا يا رب ما قوصنا إلهي وحولا إذن كان كمر إذن كو دنبابا إذن كو قفي ما إنا كار قدتانون بما عفدان إذن كو با ها عفيان برب لي إذن أيها الإخوة مرن هدودت كنحيم هدو وداد هاي سقبطان سياسيين هاي سقبطان قبائل هاي سقبطان قبل الله هاي سقبطان وحي دونية جالية دياري هاي سقبطو مساجد هم مرمو دادكو هدو يسقبطو ميدون باقردران قابك كوادة وحلو حليلا وحويان كان لقا قردران يينو وحافيو عفس قاط وقابلو هشيو قابل بعض بشريعة جديس الصلح صلحه وكومبرومايز ودadku inay isu tanaazulaan oo kana wax ka dhaadhaco kana wax ka dhaadhaco meel dhaxal la isugu yimaado si la isu afkarto kan xuquuqdiisa wax dhaafo kana xuquuqdiisa wax dhaafo kan wax loo ogolaado kan kalena wax loo ogolaado waa waxay gaalada reconciliation ka warraba ku tilmaamaan win-win situation ama win-win solution win-win labada taraf bay guuleystaan labada kooxood ba way guuleysteen way adna waxba lagu ogolaaday wixii aad sheeganaysay kana wixii uu sheeganayay waxba loo ogolaaday adna waxbaad ka tanaasushay sida waxbu ka tanaasule meel dhaxay isugu timaadeen مسلمku waliga waanu isa surnaanayna waa is haysanayna aakhiriya adduunba waa la baa aakhireen la baa baan ku sheegaya nabi maxamed baa wuxuu leeyahay alayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiix muslimka ku yaala khamiis kasta iyo isniin kasta dadka acmaashooda ilaahay loo bandhiga albaabada jannadana waa la furaa dabeetana ilaahay wuxuu yiraahdaa qof kasta oo aan iri shiriik yeelin dambigiisa aan cafiyay laba iyaga laakiin arrinkooda dib iga dhiga baa ilaahay yiraahdaa andiru haadayni hatta yastaliha labada is hayaa intay ka heshiinayaan iyaga warkooda dib u dhiga waxaad cibaadaysanaysaa inuu cinda Allah hatta maqbuul ka noqon waayaa dhici karta oo aad ku biirto kuwa ilaahay leeyay warkooda dib u dhiga adduunkana de way isku kadeedmaysaan midkiina guul gaadhi maayo maalinba mid baa la legdaa bini'aadam weligii dusha ka saaran ma jiro kala guurku xal maaha oo nabi maxamed wuxuu leeyay dadku inay kala tagaan waa ka safki dammi buu nabigu yiri walaalka oo aad ka hijrooto tiraahdo waxba dambe isku dari mayno waa ka safki dammi dhiigiisa aad daadisay la mid laakiin maxaa xala waxa ugu yara dad wada leeyay waa qoyska Soomaha qof dumara iyo haweenaydiisii waa cidda ugu yara wax wada leh nolol ka dhaxayso ilaahay qoladaas wuxuu leeyahay fala junaha alayhima an yusliha baynahuma haday murmeen ninkii iyo gabadhu dambi korkooda ma haba ilaahay yiri haday heshiinayaan inay wuxuun ku heshiiyaan markaas ilaahay qaacida caama hadana tilmaamo waxa la yiri was-sulhu khayr sulhiga heshiiska ayaa khayr ba ilaahay yiri heshiis ba khayr ba ku dhaye
والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح baa ilaahay ku xigsiiyey heshiis baa khayr ku dhan yahay nafta bini aadamka ana shaxiixnimo dhabcaalnima lagu soo ururiyey dhabcaalnimadu waa maxay qofka bini aadamkii xuquuqdiisa inuu ka tanaasulo ma jecla waxaygii gabadhu waxay leedahay anaa xaq leh ninkuna wuxuu leeyahay way iga gardarantahay anaa gar leh inaad gargartaa inta ka tanaasushaan meel dhaxay isugu timaadaan baa khayr ku jiraa baa ilaahay leeyahay uxdirat ilanfusu shuh waman yuuqa shuxa nafsihi faulaa'ika hum lmuflixuun baa ilaahay yidhi cidda laga ilaaliyo dhabcaalnimada iyo bakhaylnimada iyo gacanadayga naftiisa kuwaas baa liibaanay baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala waxa lagu gacanadaygaa maalkoo qura maaha magacaa ka mida maamuuskaa ka mida maamulkaa ka mida wixii xaggaaga xigoo dhan inaad xejisato waxba lagaa furfuri waayo ayaa ka mid ah ilaahay wuxuu leeyahay markaa wasulxu khayr wardadow inay heshiisaan ayaa khayrku ku jira في سورة الأنفال إلهي وحد المام يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم صحابتي بدر اسقبطي يقول بدر سوهي جرودة وحي حول الله هايين بكيمي أيها هدنا وحوقاقي غنيمة دي بدر لقاها لي لغو مرمي نفت بن آدم كي مالكم مكلا فقادان نما كي حوله دي بإلهي درتي وغيمي أيها مركان انتان مرانكو نحقر قلت هذا annaga gaalada eriyeynay oo maydan qaadateen iyo qolo urursatay iyo qolo nabiga ilaalinaysay muran baa dhex maray laakiin muranka ilaahay wuxuu ku xalilay intaan loo sheegin qismada fayga iyo anfaalka ayada koob iyo afartanaad intaan ilaahay kaga waramin waxa loo sheegay dhexdooda inay islaaxa ka raadiyaan waaslihu daata baynikum bal ilaahay quraanka wuxuu ku tilmaamayaa laa khayra fi kathirin min najwaahum illa man amara bisadaqati shirarka bini aadamku ay qabtaan faa'iido kuma jirta baa ilaahay yidhi khayr ma leh saddex shir mooyaane shir sadaqa lagaga warramayo wax bixiya la leeyo wax lagu sadaqadaysanayo iyo shir wanaag lagaga tashanayo iyo shir dad lagu heshiisiinaya baa ilaahay yidhi islaax bayna annaas bal nabi maxamed wuxuu inoo tilmaamayaa waxyaabaha ma idiin sheegaa buu yidhi wax soon salaad iyo maxay soon iyo salaad iyo sadaqa ka fadli badan saddexdaa shay asalkooda waa saddex arkaanul islaam ka mid ah culamadu masaladan shuraaxda xadiiska in badan waxay tilmaameen inay yihiin kuwooda tatawuce sunnada ah laakiin xataa kuwa sunnada u kaale qofka salaada badan maxaynu u naqaanaa ninka salaatuleyl tukada ee sunnayaal badan caynka waxna wallahi ninka hebel waa nin caabida ninka salaad badan weligay ma arag baad odhanaysa shanta salaadood dee layskuma ammaano nin walba waa laga rabaa ninka soonka badan le maxaynu idhahnaa ninkaasi khamiis iyo isniin iyo ayaamulbi waa boqol soon baynu idhahnaa hebel waa nin soon badan ma afuro waa ammaan ninka gacantiisu furantee sadaqada badan leh waxaynu idhahnaa waa nin sadaqo badan inay dadkaasi ahlu cibaado yihiin waynu ictiraafsannay soo maaha nabi maxamed wuxuu leeyahay intaaba cibaado ka fadli badan baa jirta haddaa idinku soonka iyo salaada iyo sadaqada cibaadaadka u taqaaniin cibaado ka fadli badan baa jirta waa maxay waa cibaadada maxay islaaxu daati albayn dadka dhibta u dhaxaysa iyo furuuqda u dhaxeeya la islaaxiyo taasaa cibaado ka fadli badan ayuha alikhwa nabi maxamed wuxuu inoo sheegay run cadaabka lagu galo iyo been khayr laga helo weligaa ma maqashay run cadaabka lagu galaa jirta runta cadaabka lagu gala waxa weeyaan qof baa war cid kale ka sheegay oluu wax ka sheegay anna waan maqla warkii baan qaado ninkii laga sheegayaanu sheegay waar hebel ninkaasi reer hebel buu xamanayo caynkaa iyo caynkaas buu lahaa ama hebel waanuu ku xamanayo maalin dhaweydun baan la soo fadhiisto waxaasuu sheegay run baan sheegayaa ninkani waxan wuu sheegay laakiin anigu nammaan baan ahay qataat dad isku diraan ahay nabi maxamedna wuxuu leeyahy laa yadkhulu ljannata nammaamun riwaayadda kalena laa yadkhulu ljannata qataatun jannada ma gala buu nebigu yidhi diradiraaluhu
diradiraalaha saadiqa ahi janno ma galo warka aad ogtay inuu laba qabiil isku jabinayo ama laba nin isku jabinayo ama laba urur isku jabinayo lama sheego lama faafiyo xumaha hebel intaad warka soo dhageysatay oo run ah oo uu lahaa oo uu caytamayay oo waxaan sheegayay satri baa lagaaga baahay inaad qariso si aan muslimiintu isu dilin laakiin intaad la cararto inaad tidhaahdo labadayda dhagood baan ku maqlayay isagoo waxaa ku hadlayay labadaba naxaas baa kaaga shumaysa khayrka heli maysid labadaa dhagood aad ku maqashay khayr kuma helaysid been baa jirta nebi maxamed uu yidhi waa khayr oo waa maxay laysa alkadaabu aladii yuslixu bayna annaas buu nebigu yidhi beenaale ma aha ka dadka dhexdooda islaaxinaya fayunmi khayran aw yaquulu khayra imaamu nawowi wuxuu leeyahy raxmat ullaahi calayh waaldaahiru xaqiiqati alkadib buu leeyahy culamada badh baa idhaa waa tawriya iyo tacriid iyo kan imaamu nawowi wuxuu leeyahy waaldaahiru xadiidkan muuqaalkiisa waxaa daahira xaqiiqatu alkadib in loo jeeday laba reer baad heshiisiinaysay laba qof baad heshiisiinaysay kani war aanu kuu sheegin ama in yaruu kaaga sheego aad yaro balballaadhisay oo aad rabtidka kale inuu qaato oo uu soo daadego ayaad sheegtay dhibi kuma jirto sida xadiidkaasi nebigu calayhi salaatu wasalaam tilmaamayo